Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan halkan idinku tusi doonaa sida WordPress-ka loogu sameeyo ama examka iyo WordPress-ka oo iskaashanaya sida loogu sameeyo localhost website. Yani website dhaba maaha, laakiinse waxa weeyaan waa localhost iyo wuxuu ku shaqeynaya waa computerkaada kaliya oo markaas localhost tiraahdo haddii cid kale istiraado dibadda ka soo search garee ma arki karto sababta haddii doonayso inuu international noqdo ama noqdo mid meel kasta laga soo Google gareyn karo waa inaad domain iibsato baahan yahay ama linkiga inaad iibsato ayuu baahan yahay. Laakiin waxaan imika uga dalneenahay mid aad kaliya ta localhost iyo adiga kugu koobano maxay tole aad ku soo bandhigi karto. Markaas haddaan laba sharti ba muhiim ah kow inaad marka hore WordPress haysato iyo inaad marka labaad haysato programka halka loo saaray loo yaqaan Examka. Marka imika aniga halkaas iigu jira waka Examkii WordPress-kina halka waa kayga saray folderkii waan la soo degay. Haddaan kugu jirin WordPress-kana waa la soo degaysaa. Marka right click double click baan siiyay waxa yar buu ku soo tuuraya okay iska dheh waxba u joojin waxa yar okay bas ka oranaysaa kadib markaad okay tiraahdo saan ku soo tuuraya halka markaad marayso waxa la sameeyaa laba qaab baa la sameeyaa qaabka koowaad dadku waxa la sameeyaa marka qaar saddexda ugu hooseeya ta saddexaad iyo ta labaad ta saddexdooda ugu hooseeya laga qaada tigta marka qaarna waa la iskaga tagaa marka adigu saad jeceshay samee haddaad ka qaadana ka qaad haddii kalena maxay tole saar marka anigu waxba ka qaadi maayo sideedaas ayaan ku dhaafaya iyadoo ah halkan next baad oranaysaa marka halkan next markaad tiraahdo next baan idhi wuxuu ku keenayaa folderka halkan miyaad ku shubaysaa walaal waa sidaada Exambook miyaad ku shubaysaa haabaad leedahay barta iigu shub next baad leedahay halkan markuu ku keeno halka yar baad tigta ka qaadaysaa halka yar haddaad tigta ka qaadi weydo website online ayuu garanaysa ku geenaya marka next baad oranaysaa next ku sii dhufo then wakaas installation-kii uu bilaabaya kadib waan jaray videoga intii installation-kii soconayay halka aad ku leeyahay restart miyaad sameynaysaa may bas ka oranaysaa deetana intuu imika installation-ka sameeyay waan ana videoga yara jaray marka uu noo dhamaaday finish baad leedahay halkaas save iska leedahay waa kan Examkii noo soo kaxay Examka saas inoogu soo kaxay okay ii soo kaxay Examkii oo arkaysaan uu ii dhamaaday installation-kii wixii markaad start baad oranaysaa start labada markaad start tiraahdo haddii aan imika tagno maxay tole Google Chrome-keeni aynu ku qorno localhost ma soo baxay runtii waxa ma soo baxayaan sidaa daraadeed oo adiga arkay Examkii way noo soo baxayaan marka sidaa daraadeed saan inoogu soo bixin WordPress-kii aynu toos u tagno waxa loo baahan yahay inaad WordPress-kii haddaan WordPress kugu jirin waa la soo degi kartaa waxaad geli kartaa www.wordpress.org halka yar download ku qoran tahay waad ku dhufan kartaa haddaan kugu jirin WordPress aniga wuu igu jiraa oo waan haystaa waka 4.7.5 folder ahaan baan haystaa adiga marka aad haystana waa sax haddii aad haystana saas la soo degi kartaa markaas waxaad sameynaysaa folderkaas ayaad soo qaadaysaa intaad gudaha markaad u gasho waxaad sameynaysaa folderkaas aad ku koobiyeynaysaa copy baad leedahay intaad soo koobiyeyso iyada waxaad tegaysaa sidaadii ama local sidaada halka Exam ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay HD document-ga aad ku dhufanaysaa halkaas ayaad ku basti gareynaysaa marka yar waa cilad bay haysatay deetana basti baad leedahay oo ka ku basti gareysmee okay folderkii waad arkaysaa inaad ku basti gareysay qaab labaad baad mari kartaa oo habka labaad aad mari kartaa waxa weeyaan inaad markan saa tahay halka ay ku qoran tahay Explorer inaad ku dhufato halka ay Explorer ku dhufatay deetana folderku toos ku geenaya maxay tole folderkan sida HTML document-ga ayaa toos u tegaysaa folderkaas ayaa toos ku geenaya deetana halka aad ku basti gareyso labadaas step baad mari kartaa inaad adigu si aad manual aad u tagto folderkii okay inta marka sameyso halka ku basti gareyso shaqadaadu way dhan tahay kaliya ta marka imika waxa imanaysaa Google Chrome-kaagii ama browser-ka aad isticmaalayso marka ku doonaba ha noqdee ama Mozilla ha noqdo ama Opera ha noqdo wuxuu doona ha noqdo browser kasta uu ku shaqeynaya browser-kaagii markaad gaarto linkiga sare waxaad ku qoraysaa
waxaad ku qoraysaa local host baad ku qoraysaa oo kaas wareegaya local host markaad ku qorto si automatic ayay kugu soo baxayaan intaas baad ku qoraysaa local host / wordpress intaas shaashada ku qoran ayaad ku qoraysaan deetana automatic buu kugu soo baxayaa halkan aad ku soo baxday wordpress ki weeyaan luqadda dooro buu ku leeyahay luqadda markaad doorato English ama waxaad doonto deetana halkan wuxuu ku leeyahay ciladaas ku soo saarayaan ciladaas macnaheedu waxa weeyaan waa cilad marka intaad markaad marto halkan uu ku soo saaraya deetana waxaad inta go ka sii socodanaysaa halkan markuu ku soo saaro waa database kaaga magaciisa username iyo password inta database kaaga magaciisa aad bedelaysaa username iyo password kana waxaad doonaysaa ayaad gashanaysaa marka labada database hostiga iyo table privacy-ga labada hoose lama taabanaysid sideeda ku daa database kana magaciisa gasho database ka soo samaysatay magaciisa si database ka loo sameeyo marka waan arki doonaa username kana adigu waxaad jeceshahay gasho ama user gasho ama admin gasho waxaad doonaysaa gasho marka intaanaan maxay toole aynaan u tagin intaynan u tagin maxay toole aynaan sameyn haddii aan iminka kusii dhufano wuxuu noo soo saaray cilad sababtoo ah database-kii aanu ku shaqayn lahaa maynaan samaysan marka waa inaan database-ka soo samaysnaa kadib wordpress-ka u nimaadnaa marka si aad wordpress-ka ugu timaado waxaad samaynaysaa halkaa linkiga sare tab cusub soo furo deetana waxaad ku qoraysaa local host php my admin baad oranaysaa deetana intan ku soo baxaysaa waa kan halkan create haddaba abuur database-kii imika geli kartaa wordpress-kii oo aad samaysan kartaa wase markaad database-ka samaysato wax bilaa database-na dee ma samaysmaan programyada marka la sameynayo waxaa lagu xiraa wax la database de su'aalahan Visual Studio database waxa waa MySQL waxa u dhaatay database SQL-ka oo Microsoft sidoo isla leedahay marka haddaanu database-kaas jirin dee laguma shaqayn karayo oo wax halkan xogta ururinaysa waa database-ka ma garanaysaa halka visual uu leeyahay design-ka iyo qaabka uu dhacayo waxaan ma garanaysaa marka meeshan wax storage ka sameynaysa waa marka haddaanu database haysan waa SES-kii guriga kala la oran kara database guriga marka saa loo dhigay waa SES baa la dhigaa soo maaha marka database-ku waa SES-kii haynayo guriga marka SES-kii way haddaanu samaysmin saqafkana ma samayn kartid markaas database-ka waanu sameynaynaa database-ka adigu hadda waxaad doonto ku qoro anigu waxaan doonaa ku qorto okay new database baad halkaas ku dhufanaysaa new database marka taado halka ay ku qorantay database ayaad ku dhufanaysaa deetana waxaad doontaad ku qoranaysaa anigu waxaan doonaa ku qoranayaa anigu waxaan ku qortay tutorial baan ku qoranayaa kaba soo qaad inaad website-kayga aan tutorial ama doonaya iska soo dhigaba tutorial baan ku qortay tutorial waa video halkan ma taabanaysid sida ha ku ahaato ama haddaad doontaba okay waxaad oranaysaa kadib go baad oranaysaa halkaa hoose waxaa kugu yaala create waxaad ku dhufanaysaa create markaad ku dhufato wuxuu ku leeyahay waad ku guuleysatay halkaa calaamada root ku soo database tutorial has been created waa halkaa le ma arkaysaa bes sidaa ku dhaaf waxaad samaysaa u kaale haddaba wordpress-kaagi imika halkaa username u samayso password halkaa markaad marayso waxaad tidhahdaa haddaba submit dheh markaad submit tidhaahdo wuxuu kuu soo saarayaa submit markaad tidhaahdo wuxuu kuu soo saarayaa halkan imika aynu bedelo weli maan bedelin database-kayga maan bedelin imika tutorial waana kasoo dhigtay waayo database-kii magacayga kugu samaysan baad halkana ku samaysanaysaa halkana baad username-kii password-kana waxaad doonta ku qoro ama admin ku qoro ama 1 2 3 ka dhigo ama magaca ku qoro adeeg ku taala laakiin labada hoose bedeli maysid sideedaad ku dhaafi doontaa labada lama bedelo sideedaad ku dhaafaysaa okay deetana waxaad iska leedahay submit baad leedahay submit markaad ku dhufato waa kan alright imika wuxuu ku leeyahay uu samaysan database-kaagu waa diyaar read to installer waxaad gashaa wordpress-kaaga haddaba imika toos baad u heli kartaa halkii aad samaysatay haddaan dhaano run the installation-na toos baynu geli doonaa waa kan wordpress-kani baan soo galnay wuxuu ku leeyahay imika samayso site title-kaagii website-kaaga magaciisa samayso buu ku leeyahay username u samayso buu ku leeyahay password-na usii samayso password-na week iska ahaado iska doonaysaa
halkaas sad pointiga saaraysa ama tigta saaraysa confirm password weak password badansa deetana email baad gashanaysaa website-kaaga emailkiisaad gashanaysaa emailka markaad geliso waxaad doonta gasho adigu hodhow deetana waxaad leedahay waxaad ku dhufanaysaa install wordpress ma tiraahdo login buu ku leeyahay gal deetana passwordkaygii waxaan kasoo dhigtay iyo usernamekaygiiba adigaa yaqaana anigu tutorial baan kasoo dhigtay tutorial admin baan kasoo dhigtay passwordkina waxaan kasoo dhigtay admin 123 adigu hodhow waxaad doontaa waxaad ka dhigatay maad ku geli doontaa waa kan login baan idhi login markaan siiyey wuxuu toos inoo geenayaa shaashadii wordpresska total imika wuu inoo samaysan yahay automatic buu inoogu samaysan yahay waad arkaysaan waa kan imika halkan aan joognaa waa back endigii website-yada laba qaybood baa loo qabiya waa front end iyo back end halkan waa back end wax la waa bartii wax laga soo geliyo front end waxa la wajahada hore ee website-ka marka imika halkan waa back endigi ma joognaa hadii doonayso front endigana waa kan inta waxaad ku qortaa localhost wordpress inta ku qor waa kan saas inoogu soo baxay sidaad arkaysaanba halkaan maxaa ku qoran tutorial somaa website-ka magaciisa xagga hoose haddaan hoos u kacno designkaas noocaas u ekaanaya sawirka iyo waxaaba iska bedeli doontaa teamkiisa iyo magaranaysa ayaad wixiisa oo dhan ba iskaga bedeli doontaa haddaad doonayso inaad adminkiisa gasho ma labaad login baad doonaysaa saasaad ku gelaysaa marka user-raa samaysan kartaa wax kasta waad ku samayn kartaa halkaa user-raa ku qoran waxaad appearance-sidiisaad ka bedeli doontaa pageskiisa media postigiisa wixii walba marka insha allah wixii dambe casharaan baynu kasoo diyaarin doonaa sida bal username loo sameeyo teamskiisa sida loo bedelo appearance-giisa wajahadiisa hore sawir loo soo geliyo postiga tagiska menu-yada waxaas oo dhan bal insha allah mar baynu iyadana doonaa laakiin imika waxaan doonayaa inaan bal sida loo abuuro kaliya inaan ku tuso markaas insha allah wixii dambe halkan ayaad kala socon doontaan aad ka daawanaysaan casharka dambe aan insha allah soo gelino marka intaa qof walba samee intaa haddaad sameyso wixii dambe adaa bedelan karaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu